السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waan salaamayaa barnaamijkii maanta waxaan guda galaynaa kulmi luqadaada waxaan rabaa inaan ka hadlo accusative relative maxay kala yihiin. Run ahaantii dad badan uu ku adag yahay waana run uu adag yahay. Marka waxaan rabaa insha Allah inaan ka siiyo tips yar. Halkan kuma soo koobi karo laakiin meelo yar fudud baan rabaa inaan ka tuso si aad u fahanto marka aad aragto. Horta marka ugu horeysa inta aad guda galin accusative relative maxay yihiin. Marka ugu horeysa bal qaacida yar akhri. Marka aad horseed fahmaysaa farqiga u dhexeeya labadaba. inta koobaad horta accusative-ku sidiisu waa shay waa wax aan nooleen ama wax la taaban karo. Dative-kuna waa wax kasta oo persona qof ah ama ka yimaado ama qofka magaciisa meesha ku jira ama person ka tilmaamo labadaba. Su'aalo aad fudud ayaan ku siinayaa. Ich gebe dir einen Kuli oder einen Stift. Kolba kaad haysato. Stift aad arkaysaan ama kuli kaad labadaba haysato waa wax aan taaban karo waa shay aan taaban karo oo waa noole. Anigu ich gebe dir adiga waxaan ku siinayaa ama aan ku dhiibayaa ama kolba sababta qaano ich gebe dir einen Stift ama einen Kuli. Adigu wax aan nooleyn iyo aniga iyo persona ay meesha ku jiraan. Markasta aniga persona qofka iska hadlay waa dative. Markasta uu shay saakhana ama wax aan nooleyn uu meesha ku jirtaan isla markiiba waxa automatic fahmaysaa inuu waxa si accusative. Ich hoffe die Tour waa arkaysaa die Tour waxaan nooleyn soo wax la taaban karo weyn saakhan weyn. Die Tour waa accusative. Anigina oo furayna waa dative. Halka laba tusaale oo kale oo fudud baan ku soo dhigay ich gebe die Frau einen Pullover. Ich gebe die Frau einen Pullover. Marka hore maxay die Frau xisku badashay die Frau. Marka automatic waxaad fahmaysaa inay tahay marka qaacidadan is halkan isku yaabto die Frau inay markiiba tahay dative. Einen Pullover maxay tahay waa shay die Pullover waa fanaanad. waa Pullover waa saakhan waxaan nooleen taaban karo waa maxay waa accusative. aad u fududahay markasta xasuusno jumlad marka soo fiiriso wixii aan la taaban karin then back salahan aksan back te waa waxaan nooleen oo saakhana die Tour albaabkii wax kasta oo nooleen oo taaban karto oo naf lahayn aad arkayso waa accusative. luqadda Jarmalkaana 80% waa accusative. 20 kalena waa dative. dative waa la isticmaalaa laakiin aad ma badna. markaste qaacida yar xifti accusative ku soo yahay iyo dative ku soo yahay. markaad inta aragto ayaad markii waxa kugu soo dhacaysa inuu xoogaha jumladu ku furfurmayso. kadib waxa ogaanaysaa dative ku markaste jumladu inuu yahay persona qofka. accusative kuna yahay saakhanka waxa la taaban karo. run ahaantii waa wax aad u fudud haddii aad isku daydo. marka haddii aad markasta buug akhriyayso waxaad arkaysaa waxyaalo badan oo saakhan ku jira wax kasta oo saakhan waa accusative. fadlan fiidiyowga xaqiisa siiya flowers aad buu